rajadi durugte shalay dooshiyo xaqiiqana leedallu lagu riday limiyo darajiyo nasla duursho wakaadibu yimi dadkii guuro nataba degalkii la soo degay ku diirsada oy ku diirsada ku diirsada oy ku diirsada ku diirsada guushi way darantee rajadi durugte shalay dooshiyo xaqiiqana leedallu lagu riday limiyo darajiyo nasla duursho wakaadibu yimi dadkii guuro antaba degalkii la soo degay ku diirsada oy ku diirsada ku diirsada oy ku diirsada ku diirsada guushi way darantee wixii dulmi jiray duruuska barto dawdii lagu jabay doraadka kaco wixii dib u dhaca markala diido dadaal wadarnimo dalkani ku dhiso nabadda duulahaan dacalka xajiyo aqoon dugsado dunida la tartama aqoon dugsado dunida la tartama wixii dulmi jiray duruuska barto dawdii lagu jabay doraadka kaco wixii dib u dhaca markala diido dadaal wadarnimo dalkani ku dhiso nabadda duulahaan dacalka xajiyo aqoon dugsado dunida la tartama aqoon dugsado dunida la tartama Somali dunto dunida ka hadee daryeelu fidso dabka ka dhex oogan daryeelu fidso dabka ka dhex oogan inaad damisaa marwal isku daya inaad damisaa marwal isku daya inaad damisaa Somali dunto dunida ka hadee daryeelu fidso dabka ka dhex oogan daryeelu fidso dabka ka dhex oogan inaad damisaa marwal isku daya inaad damisaa marwal isku daya inaad damisaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله أولا إلهي ومهدله قلبت سوق هيا كان حافظا أنا وريتشين قريان ومدة درسو السعودي والوضعنا دي قعنت كسو هيي ورقي دمر بله وصدح عشاء حاج محمود يا عاشا الشيخ علي يا عاشا النور يا رؤى سعيد ياسين ورسمه waxaan ku wareejinaynaa reerkii loo dhisay oo ah reer cabdilaahi jaamac warsame alxamdulilah tol baa soo dhisay ugu deeqay reerka walaalkooda iyadoo reerka maaragtay ay geeri ku timi baahina iska jirtay ayay u garteen inay u dhisaan hantida guurtada aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa tolka sharafta leh ee guriga soo dhisay way mahadsan yihiin ilaahay ha barakeeyo waxsan ilaahay ha ugu bedelo insha Allah haddana waxaan ku wareejinaynaa furihii reer cabdilaahi jaamac mahadnaqanaa walaalaha iyo hidooyinka iyo ilmaadarada iyo dhammaan inta ummadda
إسلام كان صعب سوى مهندقنا قرقنا وقدومنا فريسي واكن إدوين يا در وسلام النادي يا در سلام واكن ما شاء الله ما شاء الله عبد الرحمن عبد الله جامع بانكوري تشينيا فريه قرقة odaygu waxaan u sanayaa milkiilaha Cabdullaahi Jaac Warsame waana iska yarxan u sanaya iskana waayeela marka waxa wakiilka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Jaac islaantina waa gudubka waa taagan tahay Aamina Cawad marka insha Allah Cabdiraxmaan baa ku reejinaya furihii alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh halkan sidii looga hadlayo hore Saciid Yaasiin u sheegay waxaanu isugu nimi wareejinta guriga reerkii aad u dhisteen reer Cabdullaahi Jaamac waxaanu doonay inaanu idinkana gurigii idin tusno iyaguna ay galaan aanu idin tusno hantidii aad soo bixiseen intii tamar ahayd sidii aanu ugu dadaalnay inay u dhisantay insha Allah waa sida aad u aragtaan gurigii waad aragtaan waadna arki doontaan inta idinka dhiman waxa aanu nahay intii la magacaabay baanu nahay dadkii uun guriga ama hantiga ha u hayeen ama gaclug ha ugu yimaadeen ama shaqaalaha ha hortaagnaadeen dadkii gacanta ku hayay baanu nahay wuu dhammaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin wuu qurux badan yahay idinka arkaya indhihiina idin macallina marka de in la galo baa harsanayd idinkana aanu idin tusno qof allaale qofkii hantiga ka soo qayb galay oo wax ka soo bixiyayna ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro hana arko hantigii uu bixiyay inuu tolkii uu ugu talagalay uu geeridii xanuunka lahayd la qaybsanayay ku ilowsiinayseen inay sidii aad ugu talagasheen u hirgashay aad iyo aad baan idin salaamayaa intaasaanu talagalka yagu uu ahaa imin dadkii sharafta lahaa ee naga qaatay geeridii xanuunka kululayd ee inamada baan salaamaya salaam fiican tii la isku salaami jiray tii ugu fiicnayd ugu qaaliya qiimo badnayd baan idinku salaamaya ilaahay waxaan ka baryayaa wixii aad noo qabateen in ilaahay wax loon idin dhaafiyo iyo wax wanaagsan baan ilaahay ka baryayaa mid ka badanna waa idinka eegaynaa waa idinka fadhinaayo ilaahay taa mid ka badan ha idiin dhiibo gacanta ha idiin geliyo waa taa galabta nala ku wareejay guri wacan baa naloo dhisay oo wanaagsan si wacan baa naloo gacan qabtay ilaahay jasaaya ha idinka siiyo ilaahay ha idin xifdiyo doonaynaa guriga dushiisii waa aragteen gudaha inaan idinka tusno gurigu waa nusbaloodh marka hore nusbaloodhkii waa kaa aragtaan kani waa qol gogashaasaa taal waa qolkii odayga intaa ayaa loo dhigay laydhkiina waa loo soo geliyey maadaama tolkii qaatay oo guri loo dhisay waxay naga noqotay lacalla haddii wax yari ka hadheen wixii inaanu ugu hagaajino waa nin weyn waa loo imanayaa awal muddo xoolihiisu raacanayo miyi buu jiray maanta wuxuu ka qayb galay magaalada dadka jooga meel loogu yimaado oo lagu soo booqdo oo waa nin weyn oo tala qabeen haddii ilaahay caafiyo maanta ah dad raggaa talinaya ah marka meel tolku ugu yimaado ayaanu isnidhi shilinkii hadhay waxalaale wixii hadhay ugu gogla intaa yaree fudud ugu dhiga kani waa qol inamaa jooga reerka dee ubad baa jooga kuwa ayeeyo loo yahay kuwa dee caruurtu dhashay baa wax ka joogaan kuwa iyagii hoo ilmo Cabdulaahi jooga kanina waa qolka tani gogosha tan intan aanu u keenay oo aanu ugu talagalay dhalinyarada iyo martida iyo islaamta iyo wax allaale wixii guri lagu goglan jiray inta fudud baanu ka gaadhnay waana wixii shilinkii guriga ka hadhay dhismihiisa aanu gelinay halkani waa barandaha
tani waa store waa madbixii iyo storekii oo isku xidhan insha Allah alaabtan iyo bay dib isaga soo qaadi doonaan markay guriga soo galaan oo intaasay iskaga xirayn doonaan waxalaali wixii ay iska rafacayaan bay halka ku xiraynayaan kani waa qolkii saddexaad qolkan saddexaad waxa degay wiil kira ku jiray oo alxamdulillah rabbil caalamiin maantaba ka soo baxay alaabtiisii soo rartay la soo guuray kiradii kaga maarmay waa ka odaygii islaantu la galay gurigii kaasi waa gurigii inanka oo magaalada dhexdeeda laga soo raray guriga markaa reer oday iyo wiilkaasaa wada galay kani waa suuligii kana waa albaabkii kale ee dibadda looga baxayay guriga wajahadood leh waa laba wajahadood leh labada wajahadoodba guriga kooban ee sida quruxda badan u dhisan alxamdulillah tol baa laga helaa annana waydiin mahadnaqaynaa waana idinka markhaati kacaynaa wixii aa qabateen qurba joogay idinna waa aragtaan alxamdulillah rabbil caalamiin baanu leenahay idin ballamin mayno odhan mayno waxaa soo qabta laakiin waxaan u malaynayaa idinkaa ballansan intaa ayaa sheekadii guriga iyo aragtidiisii aanu ku soo koobaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin